Muddo qiyaastii 100 sano laga joogo masjid ku yaala magaalada Dimashq ee dalka Suuriya, waxaa imaam ka ahaa sheekh la oran jiray Ibrahim al-Sayuudi oo ay dadku aad u aaminsanaayeen arrimaha diintana isaga wax laga weydiin jiray. Waxaa isagana jiray ardayda sheekha ka mid ahaa oo tusaale loogu soo qaadan jiray xagga saboolnimada, hase yeeshee ahaa ruux aan gacan hoorsan cidna baryin. Ardaygaas wuxuu seexan jiray qol ka mid ah qolalka masjidka. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in ardaygii uu 2 beri qadsanaa. Gaajo daran ayaa qabatay, lacag uu raashin ku iibsadana ma uusan haysan. Maalintii saddexaad buu is arkay inuu sakaraad yahay, wuxuu sameeyana wuu garan waayey. Waxay ula muuqatay in xagga fiqhiga marka laga eego uu gaaray heer ay u bannaan tahay inuu bakhti cuno ama xado wax ku filan in uu nafta ku celiyo. Markaas wuxuu doorbiday inuu xado. Masjidku wuxuu ku yaala xaafadaha qadiimiga ee magaalada ka mid ah, taasoo guryaheedu isa saaran yihiin. Saqafka guryahana way xiriiraan oo qofkii doonaya wuxuu isaga gudbi karaa guriga ugu horeeya ilaa kan ugu dambeeya, isaga oo saqafka kore ku socda. Ardaygii inta dusha sare ee masjidka u baxay buu gurigii xigay u gudbay. Dumar baa u muuqday, markaas buu inta indhihiisii qabsaday buu gurigii xigay uga sii gudbay. Gurigii xigay oo aan qofna joogin wuxuu ka uriyay raashin caraf badan oo dabka saarnaa. Gaajadii haysay baa sidii magnadkii ugu riixday inuu raashinka dabka saaran ka war doono. 2 jeer buu min saqafkii ilaa barandadii aqal ka booday, kadibna wuxuu isla markii uga sii gudbay jikadii. Markii uu digsigii daboolka ka qaaday, waxaa u muuqday cunto si heer sare ah loo diyaariyey oo bisayl u dhow. Cuntada kuleelkeeda kama aanu fikirin. Inta uu gabal kala baxay buu cantuugay, hase yeeshee inta aanu liqin oo uu dhunjuluq siin buu caqligiisii u soo noqday. Wuxuu sameeyeyna ay la weynaadeen, dabadeedna wuu iska tufay. Wuxuu iskula hadlay, acuudu billaah, sidee ku dhacday aniga oo arday diinta barto masjidkana degan inaan guri dadow inta aan u dhaco wixii yaalay aan hado. Aad buu uga shallaayay falkaas foosha xun, ugana toobad keenay. Cuntadiina digsigii ayuu ku celiyey. Halkii uu ka yimid iyo masjidkii ayuu dib ugu laabtay. Inta xalqadii darsiga shiiqa fariistay, isagoo aan gaajo darteed fahmayn waxa uu shiiqa sharaxayo. Kolkii uu darsigii dhammaaday dadkiina kala dareeray, baa haweeney niqaab xiran masjidka soo gashay. Shiiqii bay hadal aanu isaga maqal kula hadashay. Shiiqii baa hareeraha eegay, cid aan ardaygii gaajeysna ahaynna uma aanay muuqan. Markaas buu u yeeray. Shiiqii baa wuxuu yidhi, maandhowxaas ma leedahay? Ardaygii wuxuu yidhi, maya. Shiiqii wuxuu yidhi, inaad guursatid ma doonaysaa? Ardaygii wuu aamusay. Shiiqii ayaa haddana yidhi, ii sheeg haddii aad doonaysa inaad guursatid. Ardaygii wuxuu ku jawaabay, shiiqaygii, lacag aan xabad muufa ah ku iibsado ma haysto, sidee baan u guursanayaa? Shiiqii wuxuu yidhi, haweeneydan waxay ii sheegtay inay magaalada ku cusub tahay, ninkeediina uu dhintay, wax ehel ahna adeerkeed oo waayeel maskiin ah uu ka jiro, iyadana la socdo. Markaas wuxuu gacanta ugu fiiqayaa odaygii oo meel koona ah masjidka ka fadhiya. Waxaanay ninkeedii dhintay ka dhaxashay guri iyo ganacsi. Waxaanay doonaysaa nin guursada oo astura si aanay ciyaal suuq u hunguriyeysan. Haddaba ma doonaysaa inaad guursatid? Ardaygii baa la soo booday, haa. Shiiqii wuxuu yidhi, maandhay ma aqbalaysaa inuu ninkaaga noqdo? Haweeneydii waxay tiri, haa, haddii uu oggol yahay in adeerkay inala noolaado. Markaas buu shiiqii wuxuu u yeeray adeerkeed iyo 2 markhaati, wuuna ku meheriyey. Shiiqii ayaa inta meherkii ka bixiyey ardaygii ku yidhi, xaaskaaga gacanta qabso, mise iyadii baa isagii gacanta qabsatay oo gurigeeda u kaxaysatay. Wax yar kadib markii ay gurigii soo gaareen oo ay soo galeen, mise waaba gurigii uu goordhoweed u dhacay. Markii ay gudaha galeen bay niqaabkii iska rogtay, mise waaba gabar quruxdeeda aanay ishuba meel kale inay eegto oggolaanayn. Iyada oo yaro xishoonaysa ayay ku tiri, raashin ma kuu soo guraa? Ardaygii wuxuu yidhi, haa. Digsigii ayay daboolka ka qaaday, waxaana uga dhex muuqday cuntadii la cantuugay. Waxay tidhi, tolow waa yaabe, yaa aqalka soo galay oo raashinka cantuugay? Markaas buu inta ooyey qisadii dhacday uga sheekeeyey. Waxay ku tiri, waxa aad guranaysaa mirihii ammaanada, cuntadii xaaraanta ahayd ayaad ka dhowrsatay. Markaas buu alle gurigii iyo islaantii lahaydba si xalaala isugu kaa daray. Ujeedka qisadu waa in qofka alle dartii wax u daaya uu alle wax ka khayr badan ugu beddelayo, ayuu yidhi qoraha sheekadan, al Ustaad Sabriye Muuse.
Aragtidaada qaybta qoraalada inoogu reeb, sidoo kale la wadaag walaalaha kale oo u sheer garay si ay uga faa'iidaystaan uguna cibra qaataan.